Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Adbaan idin salaamaya saaxiibayaal, halkan waa channelka xogta dalka ku soo dhawaada qodobada aan idin soo gudbinayo waxaa ka mid noqonaya Dowlada Soomaaliya oo sheegtay inay toogasho ku dishay xubno ka tirsan Xarakada Alshabaab. Maamulka gobolka Banaadir oo soo saaray amar ku socda ganacsatada ku nool gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. Guddiga dhameystirka habraacyada doorashooyinka qaranka oo toddobaad loo qabtay. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo amar duldhigay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku biiray urur siyaasadeed cusub. Maxay tahay sababta xisbiyada dalka ay u rabaan in markaasi la eriyo Francisco Maderia oo markaasi lagu soo waramayo in uu yahay mas'uuliyiinta ugu waaweyn ee ururka Midowga Afrika. Wayay saxbiyal hadii aynu ku bilaawno Dowlada Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay sheegtay inay toogasho ay ku dileen xubno ka tirsan Xarakada Alshabaab oo ku sugnaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Kumandoska danab ayaa howlgallo qorsheysan waxa ay ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo Lego waxayna ku dileen ruux canshuuraha Xarakada Alshabaab oo qaabilsanaa degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose sida wararka ay sheegayaan. Ninkan ayaa lagu magacaabaa Abu Hashim waliba laba ka mid ah ilaaladiisa ayaa lagu soo waramayaa in la qaarajiyay oo la dilay. Waxaana taliska danab uu sheegay in xilliga la dilay ay aroorinayeen canshuur. Taliyaha guutada 16aad ee kumandoska danab Ismaaciil Cabdi Malik Maalin ayaa warbaahinta dowladda waxa uu sheegay in howlgalkan uu yimid kadib markii cabasho ay timid dadka shacabka ah ee wadadaasi inta badan isticmaala. Ciidanka oo ka jawaabaya cabashada dadka Soomaaliyeed ayaa burburiyay gabi ahaanba goobihii lacagaha lagu qaadi jiray sida taliyaha uu sheegay. Ma jiro wax warar ka soo baxay Xarakada Alshabaab oo markaasi ku aadan in la toogtay qaar ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee Xarakada Alshabaab ee ku sugnaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana lagu soo waramayaa in ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyay balaarinayeen howlgallada ay ka geysanayaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana badi Xarakada Alshabaab ay ku badan yihiin tuulooyin iyo waliba degmooyin hoos yimaada gobolka Shabeellaha Hoose, balse maamulka gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay sheegeen in gabi ahaanba laga sifeynayo Xarakada Alshabaab goobaha ay ka joogaan gudaha gobolka Shabeellaha Hoose. Wayay saxbiyal markan hadii aynu eegno wararka ku saabsan ee maamulka gobolka Banaadir. Maamulka gobolka Banaadir waxaa lagu soo waramayaa inay soo saareen amaro ku socda ganacsatada ku nool gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Camir Sheegtay ayaa faahfaahin ay ka bixisay howlgallo lagu burburiyay oo ay ka sameeyeen ganacsiyada ee ku yaala hareeraha agagaarka laamiga isgooska Soobe ee magaalada caasimadda Muqdisho. Basma Camir Sheegtay waxa ay sheegtay in muhiimad gaar ah ay siinayaan maamulka gobolka Banaadir in dadka ka ganacsada ee gudaha laamiyada caasimadda Muqdisho ay si sharci darro markaasi inta badan uga ganacsan jireen. Basma Camir Sheegtay waxa ay sheegtay in marnaba maamulka gobolka Banaadir aysan ogolaanin howlgalkii xalay ee waaxda nadaafadda gobolka Banaadir ay ku burburiyeen miisaska haweenka hilibka ee ku iibin jiray si ay markaasi nolol maalmeedkooda qoyskooda ugu raadiyaan ayaa waxaa ka dhashay falcelin dhinaca bulshada ah iyada oo shacabka badi ay sheegeen in maamulka uu tallaabadaasi ku qaldan yahay. Waxaana maamulka gobolka Banaadir ay sheegeen in muhiimadda kaliya ay tahay in la qorxiyo wadooyinka magaalada caasimadda Muqdisho. Waxaana ay sheegeen in dadka laamiyada ka ganacsada loo baahan yahay inay ka tashtaan maadaama meelo kale ay raadiyaan. Wayay saxbiyal markan hadii aynu eegno guddiga dhameystirka habraacyada doorashooyinka qaranka waxaa loo qabtay muddo toddobaad ah kadib kulan warbixin looga dhageystay guddiga wadajirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee loo xil saaray dhameystirka habraacyada doorashooyinka qaranka ayay ku sheegeen in shaqadii loo igmaday inta ugu badan ay u qabsoontay inta kalena lagu soo waramayo in markaasi ay u qabsoomi doonto. Gudoomiyaha guddigaasi xildhibaan Ibraahim Saqiir oo warbaahinta Dowlada Soomaaliya la hadlay ayaa sheegay in qabyo qoraalka uu u dambeeyay hadda gacanta ay ku hayaan isla markaana dhawaan guddoonka ay ku soo wareejin doonaan habraacyada dhameystirka sharciga doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya. Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa guddigan ku amaanay shaqadii ay soo qabteen isagoo intaasi ku daray in dalka uu doorashooyin galayo isla markaana guddiga lagu fadhiyo
in ay shaqadooda ay ku idleeyaan muddo 7 siman ah. Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dhankiisa amaanay guddigan shaqadii ay soo qabteen muddada ay xilalka hayeen. Guddigan wadajirka ah ayaa guddoonka baarlamaanka waxa ay u xil saareen in ay soo dhiraan habraacyo ay ka kooban ilaa 4 oo markaasi loogu talagalay in ay inta badan ay sameeyaan. Waxaa ka mid ah koontada haweenka ee baarlamaanka sida deegaanada loo qaybinayo kuraasta xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, waxa laga yeelayo magaalada caasimadda Muqdisho iyo waliba sida loo dooran doono xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda gobolada waqooyi ama maamulka Somaliland. Sida uu qorshuhu yahay 27 bishan Maajo waxaa baarlamaanka hor imaan doona guddiga doorashooyinka qaranka si ay u soo bandhigaan nooca doorashada dalka la galayo iyo waliba qaabka loo qaban doono. oo yahay saaxiibayaal markan haddii aynu eegno gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu amar duligay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa dhammaan maamulada degmooyinka gobolka iyo waliba alaamaha ammaanka waxa uu faray inay joojiyaan dhulboobka ka socda deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. wareegto uu soo saaray gudoomiye Najax ayuu ku sheegay in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku hoolan yahay sameynta sharci bixin sax ah oo ka hirgasha dhammaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isla markaana ay og yihiin dhul boob ka socda deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. waxaana uu ku sheegay arrintaasi inay sharci darro tahay. waxaana uu sheegay in mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya aysan ogoleen arrimahaasi. wareegtada ayaa waxaa lagu sheegay in cid kasta oo haysata dhul danguud ah oo kala wareegi doono maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana shacabka uu uga digay in aysan markaasi dhulkooda ilaashadaan loona baahan yahay dhul aysan lahayn inay qaataan. maamulada degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose waliba calaamaha ammaanka ayuu faray gudoomiye Najax inay ka hortagaan kooxaha uu sheegay inay isku bahaystaan dhul boob ka socda qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaana sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose uu sheegay in muhiimad gaar ah ay siinayaan in dadka masaakiinta inta badan dhulalka laga boobo loo soo celinayo. waxa uu sheegay aad baan uga xumahay dad badan ayaa dhulka laga boobay, dagaal beeleedyo kala duwan ayaa ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaano markaasi hoos yimaada. arrintan si degdeg ah ayaa wax loogu qaban doonaa ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in markaasi la hakiyay ama la joojiyay qaar ka mid ah dagaal beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyay ka soconayay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaasi oo markaasi inta badan ay ku dirirayeen dad markaasi ku sugnaa deegaano markaasi hoos yimaada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. waxaana ugu dambeyntii ugu baaqay in dadka shacabka ay midoobaan loona baahan yahay inay markaasi wada diririn laakiin inta badan ay ku dadaalaan in ay dalkooda dhistaan. sidaasi waxaa yiri gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. waa hagaag saaxiibayaal markan haddii aynu eegno xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ururka midowga Afrika ay ka codsadeen inay bedelaan ergaga u fadhiya gudaha magaalada caasimadda Muqdisho, kaasi oo ku eedeeyeen inuu si aad ah ugu milmay siyaasadda kooxda xukunka haysa. Francisco Madeira waxa uu jahaya eedan kulul inkastoo uusan ka jawaabin, haddana waxaa la suluugayaa in qaabka uu u shaqeeyo inta badan lagu qanacsaneen. madasha waxay ergagan ku eedeeyeen inuu garab u noqday dowladda Soomaaliya isla markaana raali uu ka yahay faragelinta inta badan maamul goboleedyada ee dowladda Soomaaliya ku hayso. afhayeenka madasha xisbida qaran Cabdirasaaq Axmed Shooli ayaa ka dalbaday ergaga inuu si cadaalad ah u shaqeeyo ama ugu shaqeeyo dowladda Soomaaliya. wakiilka midowga Afrika waa mas'uulka ugu sareeya howlgalka AMISOM, wuxuu dalka ku joogaa sharci waliba heshiis. waa mamnuuc in astaanta ciidanka AMISOM ay cid kasta xirato, ayuu afhayeenka u sheegay idaacadda VOA in ciidamo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM lagu farageliyo doorashada maamul goboleedyada dalka waa xad dhaaf. waxaana ognahay in AMISOM ay wadanka u joogaan la dagaalanka kooxda argagixisada. madasha xisbida qaran waxa ay walaac xoogan ka qabaan inuu markaasi dhexdhexaad ka noqon waayo doorashooyinka qaran ee la filayo bilowga sanadka dambe, iyagoo sheegay
in ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya ujeedka kama dambaysta ah laga leeyahay uu yahay in lagu farageliyo doorashada federaalka Soomaaliya ee sanadkan ee ka dhacaya Soomaaliya. ugu dambeyntii waxaa madasha xisbiyada qaran ay markaasi ururka midowga Afrika ay ka codsadeen inay gebi ahaanba ay bedelaan ergeyga u fadhiya magaalada caasimadda Muqdisho ninka lagu magacaabo Francisco Maderia. وياي صاحبي لو قد بيتي هديه انه اغنو hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ku biiray urur markaasi siyaasadeed cusub oo ka dhisan maamulka Puntland. Madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta si rasmi ah waxa uu biiray urur siyaasadeed cusub oo markaasi ee maamulka Puntland inta badan ka shaqeeyaan. Dani ayaa isku diiwaan galiyay urur siyaasadeedka lagu magacaabo ka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland. madaxweynaha ayaa xarunta ururka waxa ku soo dhaweeyay gudoonka kumeel gaarka ee ururka iyo waliba xubnaha ururka qaar ka mid ah wuxuuna kadib u gudbiyay qaybta diiwaangelinta halkaasi oo madaxweynaha si rasmi ah u soo diiwaangeliyay xubinnimada ee siyaasadeed ee ka sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland talaabada ee madaxweyne Dani uu qaaday ayaa qayb ka ah hirgelinta nidaamka xisbiyada ee badan ee maamulka Puntland taasi oo ka mid ahayd qorshayaasha waliba siyaasadda ee madaxweyne Dani. xukuumadda maamulka Puntland ayaa 7 bil gudahooda ku soo dhistay guddiga doorashooyinka kumeel gaarka oo waqti yar shaqeynaya muddo markaasi ay ku qabatay iyadoo ay isku diiwaan galiyeen 17 urur siyaasadeed ee maamulka Puntland. guud ahaan saaxiibayaal warkii aad kala socoteen channelka xogta dalka waan iga intaan aniga Cabdirashiid Ibraahim Cali ee la socodsiinay saaxiibayaal waxaad leeyahay warkan warkiisa xigaan oo la kulantay